kulankan ay yeesheen imaamada masaajidda dalkani Jabuuti oo ka dhacay gudaha deegaanka Arraxma ee xaafad Moynta Bilbila ayaa ahay mid lagu xusayay sanad guuradii 11aad ee ka soo wareegtay markii la sameeyay dalada midaysa imaamada masaajidada ee dalka Jabuuti. munaasabada oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda diinta iyo dhaqanka ee dalka Jabuuti iyo gudoomiyaasha saddexda degmo ay ka kooban tahay caasimadda dalkani Jabuuti. munaasabadan lagu xusayay 11 guuradii ka soo wareegtay markii la sameeyay dalada midaysa imaamada masaajidada dalkani Jabuuti ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay kuwaasi oo ka mid ahaa Faysal Ismaaciil Talan oo ah gudoomiyaha imaamada masaajidada Jabuuti. madaxweyneenu waxaan arkayno in dhaafsan buu arkayaa, waxa aan garanayno in dhaafsan buu garanayaa. wuxuu naga reebay balaayada ka dhacday agagaarkeena Lebarantan de Arab baa la dhahdaa. wuu naga reebay, waan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweyneena sida uu u jecel yahay wadanka inuu wax uga qabto. culimada un maaha, madaxweyneenu wadankeenu jecel yahay, dadkiisu jecel yahay, annagana si gaar uu noo jecel yahay. العلماء si gaar uu madaxweynuhu u jecel yahay. jacaylaha uu jecel yahay darteed annaga waxaan saaran inaan nidhaahno madaxweynaha iyagiyo ciidan kugu doorsanayna ma jirto. mar afraad iyo mar shanaadba waxaan ku leenahay mudane madaxweyne ha naga tagin baan ku leenahay. imaamka ugu horeeyay waa adigan ku leenahay, annaguna kuwii kugu xigay baan nahay baan leenahay. waxa weeyaan jimciyadan imaamiyada dalka oo dhan ayay ka koobantay. tu khaasana ma waa tu caam weeyaan. sababaha loo asaasina waxay ahayd in isku xidhnaanshaha imaamiyada iyo daayactirka masaajidda. marka waxa weeyaan haddii aan nahay mas'uuliyad aad u weyn ayaa inaga saaran dalka iyo diintaba.